ayaa waxa halkaasi ka soo qaybgalayaashu ay ku weydiiyeen su'aalo kala gedisan halkaasi oo professorkuna si faahfaahsan uu uga jawaabay su'aalahaasi. Su'aasha aan qabaa waxa weeye qarnigii 200 sano u dambeysay Soomaalidu waqtigaas ayuu ka bilaabmay saraacadka iyo dhibaatada haysatay. Waa markii gumaysigu yimid weeye. Intii hore waxa laga yaabaa Soomaalidu inaysan isku haysan xagga leadershipka iyo xag dawladnimada. Marka 200 sano markii gumaystuhu yimiday Soomaalidu waxay damacday inay iyaguna xagga dawladnimada u ambabaxaan, ay damcaan inay wax bartaan, ay damcaan in leadership fiican ay helaan isku yimaadaan. Taasi waxay keentay in externalka macnaha xagga quwadihii shisheeye dawladnimadii ay Soomaalidu doonaysay in aysan jeclaanin ama ay dhinac ahaan ka jeclaadaan dhinacna ay ka diidaan. Dhibaatada haysatay ma leadership oo dhibaatadu xagga leadership kamiya mise waa xagga bulsho ahaan digaaga ma ukunta hortimaada mise digaaga hor yimaada sama way isku xidhan yihiin labadii sama marka waxaan qabaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam maxaa looga dhaliyay meesha looga dhaliyay Quraysh miyay ahayd dadka adduunka ugu sareeya camalkooga maya ahayn isaga ilaahay baa watay rabbi rasuul buu ahaa ya marka waxaan qabaa waxa weeye bulshadu cudur way yeelan kartaa laakiin soo waxaan qabaa bulshada hadday leedahay hogaamiyayaal ahlul xikm wa ahlul aql hadday helaan inay toosaan maahan ugu qabaa waxaan rabaa inaan professor kaal su'aal weydiiyo sidaan dhammaanteen wada ogsoonahay adigu waa halkan aad ka sheegaysay bulshada Soomaaliyeed cid horta u maqan ma jirto oo waa bulsho sii dabargo'aysa ama sii daciifaysa haddii aan eegno dhinaca angalada horumarka haddaan ka eegno taasna waxaa ugu sababa qabyaaladda ayaa ka koowaad adiga ka aqoon-yahan ahaan ama aqoon-yahanada kale ee maanta dadkeena wax u bartay intee leeg baad collaboration aad leedihiin si bulshada Soomaaliyeed aad contribution ugu samaysaan aqoontiida dhinaca horumarka iyo sidii qabyaaladda looga hortago way jiraan ururo oranaya waxaan nahay Somali intellectuals way jiraan anu midnaba kuma jiro rumaan inii sheegay maaha way liitaan maaha waxyaabahan soo arkay ayaa igu qanciyay haddaan cid la xiriirayo ama waa inaan jamhuuriyadda tagaan ama meelaha kale Soomaalidu degan yihiin gobolka inaan tagaan dibadda ku meeraysan marka inaan anigu khaldanahay waa laga yaabaa laakiin si urur habaysan oo birjeexa oo aqoonyahana ma arag runtii dibadaha ka hadlaya gudaha mooye alla yaab si waa loo baahan yahay geedka go'an su'aashan qabaa waxay tahay qofka Soomaaliga ee dadnimada fiican leh ee waa nidaamkan burburay meel loo dhiibay ma taqaanaayay xafiis jooga doonaya inuu dadka u adeego wax fiican u qabto musuqa uu iska dhowro laakiin ay ka hor imanayso ma taqaanaay dadkii qaraabadiisa ay leeyihiin anagu reerkaaga nahay wax nasi maaragtaane maalintii laga yaabo 1,000 qof inay u yimaadaan ay dadkii qaraabadaada ahaa ee adiga kuugu dhadhawaa ay pressure saarayaan doonaya laakiin inuu ummadana dhibaatada ay ku jirtana arkaya doonaya inuu meel fiican dadka u wado maxaad kula talin lahayd waad mahadsantiin haddaan doonayo inaan ummadda u shaqeeyo aan dawladda u shaqeeyo reerkii aan ka dhashay iyo walaalaha iyo ilmaabtiyada iyo habrowadaagga iyo ayaa nafta ii keenaya tilmaan baan ku siin geesi noqotay weeyaan geesi noqo tol wuu jiraa xidid iyo tol labada wuu jiraa soo garan aniga nin iga weyn baa jira oo walaalkay oo aad u ixtiraam aadna aan jecel saaxiibna Axmed Radan waxyaabo badan waan wadaagnaa
waxyaabana hay siyaasaddu tahay waan ku kala duwannahay soo agar markaan nasiib wanaag waxaan ku idhaahdaa markaan sheekaysan waar hay jilcinaana kuma jilcinayo hay jilcin kuma jilcinayo wixii ilma Ismaaciil Samatar leeyihiin waa halkiisa wixii ummaddu leedahay ummadaynu kala simanna gabagabadii kulankan ayaa waxaanu wax ka weydiinay qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii kulankan faa'iidooyinka ay ka heleen khudbadani uu soo jeedinayay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxayna ku jawaabeen sida tan kulankan runtii waxaan arkaa kulan aad iyo aad qaali ah oo nin aqoon-yahan oo professor oo caalami ah oo dunida maanta dadka wax ka bedelay ku jira inuu maanta soo boqday sababtaas anagana keentay in degmooyinka uga nimaano oo ka soo qayb galno maadaama uu ka faa'iideyno habka wax loo maamulo habka qoomiyadaha maadaama Itoobiya aan qoomiyad kala duwan ku kala noolahay habka aan ula noolaan lahayn iyo habka aan macnaha wadajir ugu socon lahayn mustaqbalkeena aan mataqaana ula tartami lahayn qaabka kale ayaa macnaha ka faa'iideysanaa ma leeyahay runtii in kulankan uu Professor Cabdi Ismaaciil Samatar uu hogaaminayay maanta waxaa lecture aad u qiimo badan buu ahaa lecture aan fici doona dawladda iyo shacabka deegaanka ku nool iyo dhammaan ummadda Soomaalida aan fici doona weeyaan mataqaana lecture ku soo jeediyay aad baan ula dhacnay aad baan u salaamay professorka muddada uu Professor Cabdi Ismaaciil Samatar uu ku sugnaanayo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa lagu wadaa inuu qaban qaabin doono fagaarayaal noocan oo kala ah iyo waliba dood cilmiyeedyo kala duwan kaasi oo ka soo qayb gali doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanku komishineerka komishinka booliska dowladda deegaanka Soomaaliya